بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن شعبي reer Somaliland ku salaamaya hawada waxaa halkan jooga oo la socotaan wafdi ballaaran oo ka socda xisbiga wadani wuxuu ku sugan yahay dalka Kenya waxa uu yimi howlaha qaranka ee saaran waajibaadka saaran inuu guto waxa halkan uu kula kulmay safaarado badan oo ay ka mid tahay safaaradda EU-da safaaradda Denmark safaaradda Ingiriiska safaaradda Faransiiska safaaradda Jarmalka iyo ururka ka dhaxeeya Afrikada Bari ee la dagaalanka abaaraha IGAD la yiraahdo xisbigu waxyaabaha ugu muhiimsan ee mas'uuliyiintiisu kala hadleen waxa ugu muhiimsanaa abaaraha ku habsaday shacbiga reer Somaliland oo aanu dareemayno in shacbiga reer Somaliland ay dhibaato weyn ay arrintaasi ku hayso waxaanu dareemaynaa in xukuumadda Somaliland iyo xisbiga kulmiye ee xisbiga xaakimku intuba ay ka gaabiyeen fariimihii ay gaarsiin lahaayeen beesha caalamka gaar ahaan in loo soo gurmado Somaliland annagoo gudanayna waajibka waxaanu aad iyo aad uga hadalnay abaaraha Somaliland waanu gaarsiinay fariin adag dhammaan wadamada aan la kulannay iyo safaaradaha aan la kulannayba waxaanu kala hadalnay arrinta naxdinta badan ee xidhitaanka xoolaha nool ee Somaliland u ahaa halbowlaha iyo lafdhabarta dhaqaalaha waxaanu qabnaa inay waajib ku tahay qof kasta oo muwaadin ah marka iska badayso xisbi iyo mas'uuliyiinta kale ee qaranka xisbigu isagoo la damqanaya shacbigiisa waxa uu arrimahaas kala hadlay dalalka aan soo sheegay aniga oo ah guddoomiyihii baarlamaanka ahna musharax madaxweyne ordaya iyo dhammaan mas'uuliyiinta culculus ee halkan maraysa ay ka mid yihiin hogaamiyaha xisbiga ay ka mid yihiin maxamed biixi yunis ay ka mid yihiin cabdirasaaq khaliif ay ka mid yihiin maxamed cismaan fadal ay ka mid yihiin ismaaciil buubaa ay ka mid yihiin safiir safiina iyo dhammaan iyo muniir oo ka mid ahaa xubin wafdiga intuba waxay ka qayb galeen kulamadaas aan halka ka soo sheegay waxaa la yaab leh in mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye iyagoo intaasoo abaari jiraan ay ku mashquulsanaayeen 20kii cisho ugu dambeeyey ama bishii ugu dambeysay olole siyaasadeed waxaa ka warqabtaan safaradii ay ugu baxeen bariga maxay sameynayeen meel kasta calan bay ishorwadeen isagoo shacbigu haraad u dhimanaya waxaa la yaab leh waxay ku gabanayeen wixii laga ururiyey shacbiga reer Somaliland ay ururiyeen guddiga abaaruhu ayaad moodaysay inay ku gabanayeen oo ay gabad ka dhiganayeen iyagoo marka ku gabanayay ay ka dhigayaan wax shacbiga kulmiye u keenay arrintaasi arrintii shacbiga reer Somaliland ugu badan gelisay way akaad wax la yaab leh in Muuse Biixi oo guddoomiyaha xisbiga kulmiye oo wixii uu ka sameynayay ee uu ka lahaa ololaha ka mid ahaa ay ugu dambeysay tii burca ka lahaa ee uu shacbiga ku qaybinayay iyadoo abaar ku jiraan oo ololaha cad ahayd inuu maanta ololihii u bilaabay gobolada galbeed inuu ugu baxo shacbiga reer Somaliland ee abaartaasi hayso waxay u eeg tahay xisbiga kulmiye iyo mas'uuliyiintiisu inaanay wax dareena ka lahayn arrintaas waxa la yaab leh in xisbiga wadani oo mas'uuliyiintiisu ka damqadeen arrintaas oo ay damaqday oo ugu baxay ay buuxiyaan kaalintii ay u arkeen inay bannaanayd ee xisbil xaakimku u buuxin lahaa waxa la yaab leh in hadallada ka soo yeeray ay ka mid ahaayeen in inay ahayd wax lala yaabo in xisbiga wadani mas'uuliyiintiisu ay shacbiga u gurmadaan waxay la tahay Muuse Biixi musharaxa xisbiga kulmiye waxa la yaab lahaa waxa ka mid ah ereysan ka maqlayay
inay isaga iyo cabdilcasiis saaxiibka ay tartameen bal saxaafaddu ha soo saarto halkii cabdicasiis iyo muuse ku tartameen markii guddoomiyaha ku tartamayey cabdicasiis waa laga reebay wuxuu ha laga reebo cabdicasiis qofkii waagii guriga loogu tegey oo garhka la qabtay oo la yidhi uga hadh muuse weligiiba ma tartamin abidkiiba sida la sheegay muuse raggii la tartami lahaa waa kuwa halkan jooga maxamed bixi waa ka halkan jooga raggii la tartami lahaa waa kuwa halkan jooga mid walba waxa uu codsaday odayaasha kale ee xisbiga la tartami lahaana madaxweyne Siinaanyo ayuu ku yidhi ha laga reebo markuu intaa dhameeyey Jamaal ha laga reebo marayay markii ugu dambeysay Jamaal waa laga reebayoo sidoo lagu reebay waynu wada garanaynaa in saaxiibkay Faysal loo adeegsaday in laga reebo Jamaal laftigiisa waxa la yaab leh muuse inuu ka sheekaynayo diblomaasiyad iyo xiriirka caalamka waxay la tahay arrinta inuu weydiiyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinaanyo iyo Maxamed Cabdullaahi inuu weydiiyo intaanu arrintaa ka hadal bay aniga ila tahay waxaan ahay guddoomiyihii baarlamaanka waxaan ahay musharax madaxweyne dalka ka doonaya xil baa saaran xil intaasoo aan hayo wuu igu saaran yahay muwaadinna waa igu saaran yahay oo damqanaya waxaan u sheegayaa shacbiga reer Somaliland inaanu fariintoodii oo xisbil xaakim ka gaabiyey muuse maalin isagoo abaar ka hadlaya mayna arag wuxuu ku jiraa olole wasiiradii ay ahayd inay ka hadlaan abaaraha wuxuu ku mashquuliyey inay isaga ololeeyaan oo ay dhinac socdaan oo ay reeraha u keenaan oo dadka u soo ururiyaan waxay la tahay ololahana waa la isugu iman doonaa laakiin annagu maanta olole uma jeedno waxaan u jeednaa inaanu dalka u gurmano inaanu shacbiga u gurmano inaanu abaaraha ka hadalno in xoolaha laga xidhay aan la hadalno waxaanu berri la kulmaynaa safaaradda Sacuudiga aan la kulmayno safiirkii Soomaaliya Somaliland u fadhiyey iyo Kenya u fadhiyeyba waanu kala hadli doono arrinta xoolaha in la furo oo la soo daayo sida ugu saabsan waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahay roobka ina siiyo inuu madax khayr qaba ina siiyo waxay la tahay mas'uuliyadda wayna wada saaran tahay muusena waa saaran tahay laakiin muuse wuxuu kaga mashquulay olole iyo calamada kulmiye oo waqtigii aan la qaybin lahayn uu qaybiyo wuxuu kaga mashquulay olole siyaasadeed oo aan xilligiisii joogin waxaanu annagu iska dhignay ololihii waxaanu u gurmanaynaa shacbiga iyaga waxaanu ugu maqannahay in abaaraha aanu ka hadalno waxaanu ugu maqannahay inaanu xoolaha ka hadalno waxaanu ugu maqannahay in horumarkooda u ololayno waxaanu diyaar u nahay xisbi ahaan inaanu la shaqayno xukuumadda waxaanu la shaqaynaynaa wasaaradda arrimaha dibadda aanu si buuxda ula shaqaynayno wuxuu kala garan laayay muuse in axsaabtu ay xaq u leedahay inay wakiillo ay magacowdo aad baa mahadsan yahay shacbiga reer Somaliland